dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa maanta kala socday heshiiska iskaashiga difaaca kaasi oo lagu xoojinayo xiriirka militari iyo wada shaqeynta amniga ee u dhexeeya labada dowladood. Kadib kulan maanta ka dhacay magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar ayaa heshiiskan waxaa saxiixay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wasiirka arrimaha difaaca ee dowladda Qatar Sheikh Saud bin Cabdiraxmaan bin Xasan Al Thani. Heshiiskan ayaana markaa diiradda lagu saarayay tababarada ciidamada isdhaafsiga khibradaha militariga, horumarinta awoodaha difaaca iyo sidoo kale xoojinta wada shaqeynta amniga si loo taageero dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo sidoo kale xasilloonida gobolka. Saxiixan heshiiskan ayaa mar kale adkeynaya xiriirka iskaashiga ee Soomaaliya sidoo kale Qatar, waxa uuna muujinayaa sida labada dowladood ay uga go'an tahay in markaas si wadajir ah ay uga wada shaqeeyaan horumarka difaaca, amniga, iskaashiga militari mustaqbalka sida lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Soomaaliya.